السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga marna asxaabtayda qaaliga soo dhawaada meel kasto aad ka joogtaan dunida daafaheeda isku soo noqod wanaagsan alxamdulillaah. asxaabtayda qaaliga muuqaalkan waxaa idinku wadaa qiso maadaama muuqaalkii hore ee aan soo gelinayay kommentiyadiina iyo like-tiina ee aad iga dhiirigelisay aad iyo aad u mahadsantihiin. waan idin mahad celinayaa commentiga intii soo qortay, intii daawatay, intii like-ti ii saartay iyo intii share garaysayba. asxaabtayda qaaliga ah qisadan waxay ku saabsan tahay waxaan ku dhex arki doonaa qisada dhexdeeda ma idinkugu hordhacayay laakiin horaan ka bilaabaya. waxaa jirtay haweeney waxay lahayd gurigiina way kireysan jirtay. arinta mucjisada lahayd ayaa waxay tahay mar walba oo ay guriga ay kireyso qofkii guriga dega habeenkii markii uu seexdo maalintii asagoo mid ayaa guriga laga soo bixinaya. dhowr qofood markii saas ay noqdeen markii dambe waxaa imaaday ninkii ayaa wuxuu yiri waxaa rabaa guriga inaan kireysto. maamadii waxay u sheegtay guriga ciladaas in uu leeyahay ama lagu arkay. ninkii wuxuu yiri waa rabaa, ciladiisa ayaan ku rabaa. waa ay ka kireysay. habeenkii ayuu seexday. subaxii markii la gaaray dadkii waxay ay sugayeen dariska ahaa in meedkii ay ka soo saaraan sidii caadada ahayd. laakiin lama filaan waxaa albaabkaba ka furay ninkii guriga kireystay ee xalayna ku hoyday. dadkii xaafadda deganaa waa ay wareysteen, maxaad aragtay, maxaad la kulantay, seese ku badbaaday. wuxuu dhahay xalay anoo jiifo xilli saqbar ah ama habeenbar ah ayaa waxaa igu soo baxay wax dheer oo weyn misana mugdi ah, laakiin labadiisii indhood ee aad u gudguduudan yihiin. muuqaal ahaan hadda markii aad sawiranayso waa argagax ayuu leeyahay soo maahan. mar allaala markii aan arkay uu dhahay inuu aniga ugu soo wajahan yahay waxaan afka ku qabtay oo yiri aayatul kursi. aayatul kursina waa aayadda ugu weyn quraanka kariimka, waxayna ku jirtaa suuratul baqara. dhamaanteen quraanka ayaan ku soo wada baranay. aayatul kursigi maadaama hal aayad ay tahay marba marka ka dambeyso markii aan aqriyo wixii waa ay sii baaba'ayeen ilaa iyo ugu dambeyn yacni dhulka ay la sinmeen. hadda waxa guriga ku jiro waa dambaskiisii ee iga soo daadiya. saas ayuu ku yiri. dadkii aad ayay u yaabeen. qisada intaasay ku eg tahay, aad ayay u gaaban tahay, laakiinse macnaha ay xambaarsan tahay iyo qisada sida ay ahayd waxbaa isaga xiran. qisada run ahaantii waxa aan ka faa'iideyno aayatul kursiga muhiimadda uu leeyahay. inkastoo naloo soo sheegay diinteena ee noo soo sheegtay muhiimad aad u fara badan in uu noo leeyahay. waxaa jirta haddana bini aadanka ama qofka in uu leeyahay cadow uu arkaayo iyo mid uusan arkeynin. waa insiga iyo jinniga. haddaba labadooduba shar ayay kula soo maleegayaan. midka aad arkayso adigoona ogeyn iyo adigoo ujeedaba shar ayuu kula soo doonayaa. kii aada arkeynin ee jinka ahaana shar iyo dulmi ayuu kula soo doonayaa. sidee uga badbaadi kartaa? diinteena waxayna fartay adkaar, aayaad qur'aan, ducooyin, ilaahay inaan ka magan galno. marka qisadan waxaan u soo xulay waxay ahayd afka in lagu haayo aayatul kursiga. ilaan diinta waxay sheegaysaa xilliyada aayatul kursiga la akhristo. sidoo kale qisaska aan idin soo deyn doono insha allah yacni sida aad ka dareemaysaan qisadan iyo tii ka horeysay ma ahan yacni jacayl iyo wiil iyo gabar iyo laba isku daadisay, wiilaa gabar ku daadiyay iyo gabaraa wiil ku daadisay, yacni ma ku saabsana. haddii qisooyin noocaasi ay imaadaanna waa qisooyin macno leh oo macno sita ee laga wada faa'iidi doono maadaama dhalinyaro aan wada nahay. insha allahu tacaala muuqaalkan waxaa rajeynayaa in aad ka hesheen. qisadana haba iska gaabnaatay in aad wax kala dhex baxdeen. inaad ugu dhiirigelin doontaan muuqaalada noocan oo kale inaan soo badiyo. waan idiin soo wadaa muuqaaladii cuna kariska way sidii ay usoo geli doonaan channelka iyo muuqaaladii kale ee vlogyada iyo wixii kale oo wanaagsan oo aniga aan u arko in anigana muxuu ahaa la igaga faa'iidayo dadkayga ay igaga faa'iidi karaana. muuqaal noocan oo kale inta aan ku kulmi doono waa walaashin Zakiya Aadam oo idin la amaano Allah.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.